السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena imtixaanaha ee ku saabsanaa ama la xiriiray sarbeebaha af soomaaliga sidaan hore u sheegayba sarbeeb macnaheedu waxa waaye waa hadal saaran macnaha hadalka mase ereyada muuqda mooye waxaa ku hoos jiro ereyo kale oo macno kale leh ama weedha siday kuugu muuqato ma ahe macno kale ayay weedhaasi leedahay taas ayaa la yidhahaa sarbeeb waa waxaa afka ingiriiska lagu yidhahaa metaphor waxaan soo qaadanay sarbeebaha la xiriira waxa la cuno iyo waxa la cabo sidoo kale waxaan tusaale idinka siiyey sarbeebaha la xiriira soomaalinimada cawar waxaan rabaa inaan idinla wadaago sarbeebo kale oo la xiriiro saboolnimada waxaan ku bilaabayaa waa dogob madow dogob waa geed ama kurtun ama alwaax lasoo goyo meel yaallo waa dogob madow marka waxaa macnaha muuqdo ma aha dogob madow waxa laga hadlay laakiin waxaa laga hadlaya waxa waaye waa qaawan yahay dhar ma qabo marka sarbeebta waxa waaye hadal dul saaran saan hore u sheegay tusaale wiilka carruurta ugu weyn oo curadka ahi dhar ma qabo waa dogob madow macnaha waa aradan yahay oo dhar ma qabo waa dogob madow sarbeebta kale xigta waxba gacanta uguma jiraan macnaha waxa muuqda waxa tusaalaha macnaha muuqda weedhan waxa waaye gacantan waxba uguma jiraan marka gacanta waxba uguma jiraan macnaheedu saas ma aha marka waxa waaye waxba iskuma hayo awood ma laha waxba laga maqli maayo kadaad maqshid hebel waxba iskuma hayo macnaha waxa waaye wax gacanta ugu jiro ma jiraan haddaad maqashid waxba gacanta uguma jiraan macnaha waxa waaye waxba iskuma hayo waxba lagama maqlo awood kama laha tusaale odayga reerka waxba gacan uguma jiraan oo warkiisa ma socdo macnaha wax awood uu ku leeyahay ma jirto waaye sarbeebta xigta waxay tahay kaleento waa ka xun tahay marka weedha iyada ah oo weedha dhiman ah waa ka xun tahay marka fiiriyo waxa waaye qofkan waa ka xun tahay macnaha kale oo liita waxay tahay macnaha kale oo meesha ku jirta waxay tahay qof liita dhaqaale xumo la liito gaajo la liito haraad la liito marka waa ka xun tahay marka aragto qofkaas wuxuu imaan karaa ma lagu macnay karaa ama sababta hoos imaanaysa waxay tahay waa qof liito dhinac waliba ha noqoto dhaqaale xumaha ka liito gaajaha la liito ama haraadha la liito waa ka xun tahay tusaale saabir isagoo ay ka xun tahay buu maanta harsamadii cidda ku soo dhacay macnaha hirtii oo markii lasoo hergelayay harsamadii cidda ku soo dhacay isagoo ka xun tahay daamin asagoo gaajo hayso ayuu cidda ku soo dhacay sarbeebta ku xigta waxay tahay shafka dhulka lagu hayaa martaad macnaheed maa shafkaas dhulka la dhigtay oo xabadka la dhigtay ma aha macnaheeda laakiin macnaha ka hooseeya waxay tahay xabadkaa loo jiifaa waa la liitaa xaalku ma fiicno shafkaa dhulka lagu haya macnaheed waxa waaye xaalka ma fiicno qof haddii ku yidhaaho wareeba lalaaya ka warran xaalka haddaad tidhaahdo shafkaa dhulka lagu hayaa macnaheed waxa waaye xaalka ma fiicno ma wanaagsano tusaale dad iyo dunyaba aad baa loo haraadsan yahay oo shafkaa dhulka lagu hayaa sarbeebta ugu dambaysa oo raba inaan ku soo gebagabeeyo sarbeebaha caawa aan idinku talagalay gaar ahaan soomaalida xiisayso sarbeebaha af soomaaliga ama barashada af soomaaliga ama wax ka ogaashaha af soomaaliga waxay tahay sida gacantaas waa sarbeeb waa erey muuqdo waa sida gacantaas marka gacantaas sidaas ma macnaha ka muuqdo macnaha hoose ee muuqdo waxaa waaye qaawanaan qof dhar quman qabin macnaha dhar quman dhar habboon ku habboon aan qabin qof aradan waa sida gacantaas tusaale carruurta reerka u joogta oo dhammi waa sida gacantaas marka haddaan ku yidhaaho uniga hebel baan soo arkayo waa sida gacantaas macnaha waxa waaye hebelkaan soo arkay
wuu arradnaay wuu qaawanaay dhar habboon ma uuna sidanin kulan intaan ku kulmayna kulan dambe oo xiiso leh waa istad farxooda leh kulan dambe oo xiiso leh la socod wanaagsan iyo had iyo jeer inaad garab istaagteen afkiina hooyo saan mar kasta u ilaaho huno iyo hadal shisheeye halna kuu tari maaye u hiili afkaada hooyo isagaa kuu habboone kulan dambe oo xiiso leh wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh